waa qaar ka mid a orahyadii ugu qosolka badnaa laguna xasuusan doono Robert Mugabe, madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe. Wuxuu dhahay, haddii aad aragto lamaane Afrikaan ah oo xaafadda horteeda ku leersanaya, ha u malaynin jacayl ee korontadii ayaa ka tagtay. 2. Haddii aad aragto nin xaaskiisa markay ka degaysa gaariga daaqadda ka furaya, kama ahan jacayl ee gaariga cusub ama gabadha. 3. Haddii la xiro meheradaha lagu iibiyo make-upka dumarka ay isku qurxiyaan, carruur badan ayaan hooyooyinkood aqoonsadeen. 4. Waalidka Afrikaanku waa kuwo intay ku dhangadeeyaan ama ay ku uleeyaan haddana ku weydiinaya sababta aad la ooynayso. 5. Aynu runta isku sheegno, marka la leeyahay nin kasta oo guul gaara, gabar ayaa ka dambaysa, ma ahan ta lala sheekaysto ee waa hooyadii. 6. Wiilasha Afrikaanku jacaylka waxba kama yaqaanaan. Mid bay xaaskiisu barkin ku soo tuuraysaa, markaasuu isna mindi ku eryanayaa. 7. Afrika waa meesha qura ee wiil san weyni gabar ku oranayo, la'aanta ma neefsan karo. 8. Dadka kubadda daawada waa dad qosol ah. Waxaad arkaysaa mid leh, ciyaartooy baanu ku soo iibsanay intaasoo milyan, isagoo xitaa wuxuu ku casheeya aanan haysan. 9. Haddii daanyaradu maalqabeen ahaan lahaayeen, waxaa la arki lahaa gabdho badan oo duurjoog ah. 10. Gabar kastaa waxay leedahay 2 nin oo ay la sheekaysato. Mid waa kan ay jeceshahay, midna waa kaashiyerkeeda ama bangiga ay lacagta ka shubato. 11. Gabadha aad u dirta $3 ee haddana isla markiiba misidkool kuu soo gasha, guurso waa gabar taqaana dhaqaalaynta lacagtee. 12. Dhibaatooyinka Afrika waxaa ka mid ah, haddii la yidhaahdo qofna dibadda uma soo bixi karo oo waa bandow, qof walba wuu soo baxayaa, bal si uu u eego in ay cidi soo baxday. 13. Waan iska dhaafay daawashada aflaamta Afrikaanku matalaan markaan arkay gabar Afrikaan ah oo ninkeeda cuntada ugu daraysa sun, haddana dhadhaminaysa bal inuu sun leeyahay. 14. Haddii aad guursato gabar saaxiib nagula ah Facebook dhammaanteen, waxaad noo wada tahay seedii. 15. Dalalka faqiirka ahi waa kuwa ay ugu dhaadheer yihiin heesahooda qaranku, waayo waxay kuu sharaxayaan dhibaatooyinka haystaa. 16. Qof dhiirigeliya haddii aad ku tiraahdo sideen ku guulaysan karaa, wuxuu ku oranayaa ugu horeyn naftaada hel, talow walaal xaggeen ku dhuumanayay. 17. Markay Afrikaanku lacag yeeshaan, waxay caafimaad u aadaan Jarmalka, waxay lacagta dhigtaan Switzerland, waxay u dalxiis tagaan Canada. Haddii ay dhintaanna, waxay doonayaan in dhulkoodii hooyo lagu aaso. Afrika muqubuura markaa. 18. Afrika markaad joogto uma baahnid saacadda jaraskeeda inaad ku xirato si ay kuu toosiso, mushkiladahaaga ayaaba ku kicinaya. Haddaba saaxiibayaal, waxaan filayaa inaad ka hesheen. Inoo soo qor nambarkii adiga ku cajabgeliyey ama qaybta aad ka heshay. Muuqaalkanna saaxiibada kale inuu anfaco ayaa laga yaabaaye, inoo sheer gareeya.